siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta lixaad dhisidii Kacbada. wuxuu quraanka iyo xadiistaba sheegeen in Nabi Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil ay dhiseen Kacbada. waqtigii Quraysheed, nabiga oo 35 sano jira, ayay Quraysh waxay dhaheen Kacbadii maadaama ay duugooday waa inaan dhisnaa oo aanan maal u raadinaa. waxayna isku dhaarsadeen inaysan Kacbada ku dhisin ilaa wax xalaal ah maahine, iyo inaysan gelin xoolo riba iyo wax qof bani aadan ah lagu dulmiyay. nimankii Quraysheed markii ay Kacbada dhisayeen waxaa ka go'ay xoolihii xalaasha ahaa ay haysteen, sidaa darteed waxay ka soo sokomariyeen Kacbada dhismihii Nabi Ibraahim labadii tiir ee Shaam xigay. markii ay dhismihii dhameeyeen ayay isku khilaafeen ciddii Xajarul Aswadka booskiisii dhigi lahayd, maxaa yeelay qabiil walba wuxuu rabay inuu isagu magaca qaato. markuu arrinku meel xun marayo waxay go'aansadeen qofka ugu horeeyay albaabka ka soo gala inuu kala saaro. nasiib wanaag qofkii ugu horeeyay albaabka ka soo gala wuxuu noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam. markaas bay farxeen oo waxay dhaheen waa Maxamedul Amiin, kulligeena raali baan ka nahay. arrinkii bay nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegeen. markaas ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri ii keen go'. markii go'ii loo keenay ayuu dhahay qabiil walba nin ha keeno. markii qabiil kasta nin keenay ayuu dhagaxii go'ii ku dhex riday, nin walbana uu dhinac ka qabtay. markii meeshii la gaaray intuu kor u qaaday ayuu saaray. qabiil walbana sidaas ayuu uga qayb qaatay qaadida dhagaxa. nabigu wuxuu ahaa qof ilaaliya xaqa, dhexdhexaadiye caadil ah. Quraysh aad ayay ula dhaceen sida cadaaladda ku jirto oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam u dhaxgalay arrintooda. waxa uu qabiil walba ku qancay qaabkuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga qayb galiyay qaadida dhagaxa madow. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam. kala soco maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.